waxaan ku soconnaa xudunta dagaaladii ugu dambeeyay ee lagula jiro kooxda argagixisada ee Daesh Soomaaliya waa xilli habeen ah wax kale oo soo dhigtay cid kale ama haayana ma arag nimanka ka BSF waa halka laga barto tabta iyo habka casharada ay taariikhdu xusto loogu dhigo nabaadiidka al-shabaab iyo Daeshna waa tagto mahadha oo aysan ka soo kabsan doonin juhdi iyo dadaal joogto ah oo ay sameeyeen soo majeestayaasha aan u jixin dhagarqabayaasha ciidanka BSF ayaa abaabulay howlgal ay ku jaan iyo ciribtirayaan daalimiinta jidaystay qubidda dhiigga bulshada Soomaaliyeed BSF waxa ay dadaal gelisay guluf ka dhan ah ciribtirka argagixisada qaybaha kala duwan ee ciidanka ayaa sameeyay howlgallo ay jiif iyo joogba ugu diideen cadawga taagta daran ee Granto waayuhu soo afjartay BSF waa barbilowga guud ahaan Soomaaliya marka laga hadlayo la dagaalanka xagjiriinta howlgallo isdaba joog ah ayay ka fuliyeen buraleyda calmiskaad ee gobolka Bari kuwaas oo isugu jiray baadigoobka xagjiriinta iyo baraarujinta bulshada si ay doorkooda uga qaataan uguna dhiiradaan la dagaalanka soo afjaridda kooxaha la qalday ee marin habaabiya dadka caqabadna ku ah horumarka iyo amniga dalka waxayna ciidan ku tageen dhulka hawdka ah ay gabaadka ka dhigtaan kooxaha Daesh iyo al-shabaab waxayna muddooyinkii u dambeeyay fuliyeen howlgallo baaxad leh oo ka dhana sharwadayaasha BSF ayaa ka fulisay howlgal dhanka badda ah goobaha loo yaqaano Dhooftinle iyo Cadcado oo ka tirsan degmada Ceelaayo dhaqdhaqaaqyadan ayaa lagu raadgoobayay rag ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo si dhuumaalaysi ah uga raaca halkan dooyo kana keena shixnado sahaya dhanka dalka Yemen ciidanka BSF ayaa howlgal qorshaysan ka fuliyay magaalada Boosaaso kaas oo lagu baadigoobayo mid ka mid ah raggii lagu tuunsanaa farsamaynta qarax lala beegsaday dadka deegaanka Milxo waxaana lagu guuleystay in la soo qabto dhagarqabahaas BSF ayaa howlgal ay ka sameeyeen toga jiifis oo u dhaxeeya magaalooyinka Xange iyo kala dhacda ka qabtay 3 nin oo ka tirsan ururka al-shabaab xaafuun iyo magaalooyinka kale ee dhaca xaaxiga xeebaha bariga fog ee Puntland waa dhul ay adag tahay tagistiisa marka laga hadlayo masaafada loo soconayo iyo dhulka lagu safrayo oo isugu jira bacaad buuro iyo dalcado adag ciidanka BSF ayaa xuraan ku helay in deegaanada teedsan xeebaha ay dhaqdhaqaaq ka wadaan kooxaha sharwadayaasha ah ciidanka ayaa intii ay safarka ku jireen qabtay 4 nin oo Daesh u soo dirsatay inay agab ciidan uga soo qaadaan inta u dhaxaysa Tuulo Ciise iyo deegaanka Timirshe laanta xogdoonka ee ciidanka BSF ayaa ciidanka oo safar ku jira waxa ay la wadaagtay in rag ka tirsan Daesh ay ku sugan yihiin toga Maroodi Magale oo wax yar u jira deegaanka Timirshe ciidanka ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan 3 nin oo ka tirsan raggii xogtooda la helay intaas ka gadaal ciidanka BSF ayaa waxa ay sameeyeen howlgal lagu baacsanayo haraadiga kooxda nafla caariga ah ee Daesh oo dib weyn ku haya dadka reer guuraaga ah iyo magaalooyinka ka agdhow ka amniga ee BSF ayaa gurmadkii ugu horeeyay ee gargaar ah gaarsiiyay degmada Baran ee gobolka Sanaag gurmadkan ayaa ka koobnaa biyo dhaamis iyo shidaal loogu talagalay gurmadka BSF ayaa sidoo kale maamulka degmada iyo kan gobolka Sanaag ku wareejisay booyado dadka biyo u dhaamin doona inta baahida biyo la'aaneed ay jidho ciidanka amniga Puntland ee BSF oo ka duulaya abaarta ba'an ee saameysay guud ahaan geeyiga Soomaaliya gaar ahaan Puntland ayaa gurmad biyo dhaamin ah oo lagu samata bixinayo dadka iyo dunyada ka sameeyay deegaanka Geesa Qabad Kobdhaxaad Maroodi Ur iyo Toga Laba Xadiile intii uu socday biyo dhaamisku ciidanka BSF ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay qaar ka mid ah dadka ugu jilcisan ee aan haysan wax ay quutaan waxayna howlgal ballaaran oo lagula dirirayo kooxaha nabaadiidka ah ee al-shabaab ka fuliyeen goobaha ay kaga dhuumaaleystaan buraleyda calmiskaad ee gobolka Bari howlgalkan ayaa ka dhacay qarka Xabley dusha sare ee ceelka Geesa Qabad Toga Canjeel oo dhammaantood ka tirsan degmada Ufayn ee gobolka Bari ee Puntland ka gadaal dhawaaq culus oo ka soo yeeray dadka ku nool deegaanada dhaca bariga fog ee Puntland ciidanka difaaca Puntland ee BSF ayaa deegaanka Timirshe ee gobolka Bari iyo deegaanada hoos yimaada gaarsiiyay kaalmo isugu jirta lacag iyo shidaal ay ugu talagaleen inay kaga qayb qaataan abaarta ballaaran ee ka dhacday deegaanka iyo guud ahaan dalka si ay ula qaybsadaan baahida jirta gurmadka biyo dhaanka abaarta ka dhacday mandaqada Puntland waxa la gaarsiiyay Baran Ufayn Dharoor isku shuban Dhahar Waaciye Qardho Yakayaka Sheerbi Geesa Qabad Balle Busle Jariiban Godad Seemada iyo Jeexdin oo ka tirsan gobolada Bari Karkaar Sanaag Haylaan iyo Mudug barnaamijka guri iyo geed oo ah qorshe ballaaran oo lagu cagaarinayo isla markaana lagu binaynayo bilicda magaalooyinka Puntland ayaa ah mid miro dhalay kaas oo gaaray inta badan deegaanada waxayna gaarsiiyeen sanadka 2022 ciidanka BSF koonfurta magaalada Gaalkacyo Xarfo Cagaaran
Carmo, Murcayo, Kalabayr, Warneer, Waaciye, Sheerbi, Xumbays, Xiriiro iyo Buraan. Ciidanka BSF ayaa gaarsiiyay raashin kala duwan qaybo ka mid ah gobolada Bari iyo Karkaar. Raashinkaas ayaa ka mid ah kaalmada iska wuxuu qabso oo ciidanka BSF ay la garab taagan yihiin shacabkooda. waxaana shacabka la gaarsiiyay ay uga mahad celiyeen dhammaan ciidanka waqtigooda iyo dhaqaalahooda la wadaagay xilli uu dalku ku jiro xaalad adag. meeshaan waxa ka jiray oon khatar ayaa ka jiray. ilaahayna waxaan ka rajeynaa kuwa ka badan ka rajeynaa. iyagana waxaan uga mahad celinaynaa iyaga madaxda kaleetaba ilaahay ajri xasanaad inuu ka siiyo. hadda waxa jooga dameera hadda waxa jooga oon madar waa hadda biyaha ka hor ayaa jiro baahi macna biyo ay haysay. marka iyagana haddaan waraabeena anagu waxaan nahay dad maguuraana oo waxa weeye ilaahay baa deeqda bixiye waxa weeye jiilaashaday oo waxa weeye xooli ka xumaadeen baanu nahay. waxaanu ku noolnahay meesha la yiraahdo yaqaad baanu ku noolnahay. waxa weeye ilaahay islaam baa u baahanahay. waxa weeye hadda deeqda insha Allah ilaahay baa deeqda bixiye ina soo gaarsiiyeen BS na soo gaarsiisay oo aanu hadda haysano oo ku fadhino gacanta ku hayno oo ilaahay mahad iyo iyaga uga celinayno. waxaa suurto gashay iyadoo xaalad abaareed ay ka jirto guud ahaan dalka waliba goobaha loo yaqaano gaariwaaga ee gobolka Bari in ciidanka BSF ay si iska wuxuu qabsaa u qaybiyaan raashin kaasoo lagu saleeyay sida loo kala tabar daran yahay iyo sida deegaanada ay ugu kala badan tahay abaartu. BSF waxay ogsoon tahay inay muhiim tahay waxqabadka shacabku inuu yahay furaha guusha iyo burburinta cadawga shacabka Soomaaliyeed ee Daacish iyo Al-Shabaab. ciidanka BSF ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada Ufayn ee gobolka Bari oo ay ka mid yihiin baadiyaha deegaanka Hooyaqaad iyo Dawacaaley halkaas oo ay ugu kuurgaleen shacabka biyo la'aanta iyo abaartu ay saameysay waxayna guddoonsiiyeen raashin kaas oo meel kaga kac ah. ciidanka BSF ayaa howlgal ka sameeyay magaalada Boosaaso kuwaas oo lagu raadgoobayo rag ka tirsan sharwadayaasha waxaana lagu qabtay xubno ka tirsan nabaadiidka arxanka daran. ciidanka BSF ayaa waxa ay deeq raashinaha gaarsiiyeen deegaanka Cagaaran kaasoo lagu taakulaynayo dadka ay saameysay abaarta baahsan ee ka dhacday guud ahaan mandaqada. BSF ayaa waxa ay deeq daawo ah oo kala duwan gaarsiiyeen cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka deegaanka Xiriiro oo wax weyn ka bedelaysa baahida caafimaad ee ka jirta deegaanka. waxayna maamulka magaalada ku wareejiyeen shidaal loogu talagalay in dadka biyo loogu dhaamiyo si loo daboolo baahida biyo la'aaneed ee haysata magaalada Xiriiro oo ay si weyn ugu soo hayaameen dadka reer guuraaga ah ee ka kala yimi qaybo ka mid ah gobolada Karkaar, Bari iyo Nugaal. ciidanka BSF ayaa deeq raashin gaarsiiyay deegaanka Hurdiye oo ka tirsan degmada Xafuun ee gobolka Bari kaasoo loogu talagalay dadka miyiga iyo magaalada waxaana loo qaybiyay dad badan oo baahi u qabay. taageerida iyo taakulaynta shacabka xilliyada adag ciidanka BSF ayaa deeq gargaar ah gaarsiiyay deegaanada hoos yimaada degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar waxaana ka mid ah meelaha deeqdan laga bixiyay baadiyaha Tuurdaleele, tuulooyinka Libow iyo Shire. waxaana deeqdan loo qaybiyay 70 qoys oo reer guuraa ah waxayna ka koobnayd noocyada kala duwan ee raashinka. ciidanka BSF waxa ay ugu baaqayaan cid kasta oo la shaqeysa kooxaha nabaadiidka inay isu soo dhiibaan ciidamada lana siin doono xorriyad buuxda.